السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان واد سلامتين أرضي دنين إنay barato naxwaha luqadda Ingiriisiga muddo 4 bilood ah ayaynu u madaleynay inaad ku barato adiga gurigaaga jooga kaliya waxaad la socotaa casharada taxanayaasha ah ee aan maalin waliba halkan soo gelin doono. cashirkeena maanta waxa uu ku saabsan yahay mawduucyadan ayaynu kaga warrami doonaa. muxuu yahay naxwaha ayaa inoogu horeyn doono, waxa inoogu xigi doona inaynu talab siino ardayda danaynaysa inay barato naxwaha luqadda Ingiriisiga. midka xiga waxa waaye sentences, jumladaha inaynu wax ka barano maxay yihiin iyagu jumladaha, verbska, subjectiska iyo objectiga inaynu sidoo kale aynu barano. xeerar ayaa jira ee aad mari doonto naxwaha intaad baranayso, sida anagu aan go'aaminay 4 bilood programkan ee socon doona naxwaha lagu baranayo 4 bilood adigu gurigaaga jooga. marka heerka koowaad waa inuu qofka uu yahay qof uu bilaawan yahay naxwaha ama luqadda ay u bilaawan tahay. shahaadiga heerkiisana wuxuu noqon doonaa maxaa la yiraahdaa beginner to intermediate certificate ay noqon doontaa. heerka xigi doono oo ardayga uu talaabi doono sida road mapka grammarka uu yahay intermediate-ka to upper intermediate inuu noqdo. heerka ugu dambeeya ayaa wuxuu noqon doonaa English Reference Grammar Certificate wax la yiraahdo ayuu noqon doonaa. marka waxaase u sii dambeyn doona in ardayga uu noqdo grammarian, uu isaga kalsoonaado inuu luqadda maaragtay ku hadli karo oo uu ku gudbin karo wax waliba oo uu dhisi karo. waxa aynu sheegi doono halkan aynu ku sheegi doono waxa ugu horeeyo ay tahay inaynu hadda qaadano. waxa ugu horeeyo basic introductions of grammar lessons, cashiro horodhac ah ay ku saabsan naxwaha. qaybaha uu kala baxayo yani jumlada qaybaha ay kala baxayso iyo sida iyada jumlada ah loo dhisayo, sida jumlada loo dhisayo. qaybta koowaad way ee aad ku baran doonto heerka koowaad ee naxwaha. heerka labaad wuxuu noqon doonaa inaad barato intermediate grammar lessonska, sida tenniska loo dhiso, sentenceska sida loo dhiso iyo sida loo abuuri karo comprehension storieska ee ka warramaya dhacdooyinka markaasi dhacaya ee iyadoo lagu dabaqayo tenniska dhacda falka iyadoo lagu dabaqayo. waynu gaari doonaa qaybahaasi, laakiin waxa laga doonayaa inaad ku xirnaato taxanayaashan oo aanad marna ka tagin cashirba cashirkiisa kale. haddii uu ku dhaafo cashirkan aad qaadatay mid kale uu ku dhaafo waad isku dhex qasmaysaa, soo ma garanaysid. waxaa laga doonayaa marka midka ku xiga inaad si joogto ah u qaadato ilaa heerkan uu ka dhamaanayo si aad ugu gudubto heerka kale. dhibaatay kugu noqonaysaa haddii aad heerkii hore haddii aanad wax yani maxaa la yiraahdaa toos aanad u soo wada qaadanin oo aanad soo wada dhamaynin, dhibaatay noqonaysaa inaad heerka labaad aad timaado, because complete ayaa la rabaa inaad yani maxaa la yiraahdaa heerkan koowaad aad uga soo baxdo. heerka labaad waxa ku yani maxaa la yiraahdaa waxa ku jira cashiradaasi aynu soo sheegnay. heerka saddexaad wuxuu noqon doonaa waa heerka ugu dambeeyo ee 4 bilood ee aan u go'aaminay in adigoo gurigaaga jooga naxwaha ku baran kartid. waana heerka ugu advanced-ka ah ee ugu sareeya naxwaha ee aan bixin doono cashiradiisa waynu arki doonaa. heerka ugu dambeeya muxuu noqon doonaa? heerka ugu dambeeyo waa in aynu adiga ku dhisno qof naxwi ah inaad noqotid, grammarian inaad noqotid. maxaa ay ku imaan doontaa? inaynu ka qaadno regular exams, imtixaanaad joogto ah, tijaabooyin joogto ah, assignmentiyo laga soo dhaxulayo ardayda fikradaha. group WhatsApp aan sameeynaya cid danaynaysa ay la soo xiriirto. lambarka waxa uu ku jiraa panelka xiga ayuu ku jiraa. cidda danaynaysa qaybta hoose ee description-kan waan ku soo qoray. cidda danaynaysa group WhatsApp kaas ayaan ku biirin doonaa. assignmentiyada consensus topicska ardayda fikradaha iyaga maskaxdooda ay ka soo xulaan midba midka kale uu u dhiibo ayuu ku soo diyaarin doonaa. maxaa la yiraahdaa cinwaan ahaan ayuu ku soo diyaarin doonaa. waana xilligaas markii la gaaro, inkastoo ay joogto noqon doonto markaynu maaragtay qaybta labaad ee heerka labaad ah in markaynu soo gaarno tenses ka markaynu soo gaarno inaynu assignmentiyo isku dirno
oo aan cinwaano kasoo samayn karno dhacdo falka maalintaas aynu qaadanay